waa wax aad iyo aad dhibaato oo ilmahaas dambigaas uu galayo waxa ku soo oogto u soo jiiday hooyadiis ama aabihii. waalidiinta Soomaaliyeed iyagoo aan ka fiirsan waxa ay gadaal ka noqon doonto ayay waxay arkeen lacagtii iska socotay ee sida roobka u daasay ka bacdina hubaya hiddo ayaa ka dhacday. waalidiin badan ayaa ilmahooda magacyadooda lacag ku sarifay, jeega ku sarifay, hebelow ilmahayga igu qor, wiilkayga igu qor, gabadhayda igu qor, gurigan waxaan ku qoray wiilkayga. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد انت مقعي موقعي وتقانا شعبك الصوماليات ملك السجوكتان أولا لكن عبد الحكيم عثمان نور أوكما غير شخص صومالي AKA حرت شيخة مينيابوليس مينيسوتا. انت النعبي انت جعل انت تاجر سنة انت قصور جدا لما انتين وحن نقول السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo Minnesota maxaa cusub sida la socotaan xaaladda gobolka Minnesota aad iyo aad ayay u qasan tahay. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu soo oogay xatooyo xoolo dadweyne waliba xoolo dawladeed. faahfaahin badan uma baahna halka waxa lagu soo oogay dadkaasi iyo waxa ay sameeyeen. sidaa darteed waxaa jiray organisationada ay Soomaalidu ku xidhnaayeen ee qandaraaska siin jiray laba organisation saddex organisation baa mid gabar Soomaali leedahay oo wali shaqaynaya isagu iyo laba kale oo gabadhaha cadaanka gabar keera la yiraahdo iyo gabadha la yiraahdo Swede Amy Gerald ay lahayd. saad ogtihiin Swede Amy Gerald hay'adaha federaalka ee dawladda laanta dambi baarista waddanka Mareykanka FBI dhammaanteed wixii ku jiray Swede Amy Gerald businessyadii dadkii waxaa loogu daatay guryihii waxaana la wada qaatay dhammaan hantidii xitaa kabihii looma reebin dadkii waa laga wada gurtay saa la wada socotaan gawaaridii dahabkii saacadihii waxba yaraatee badbaada ma jirto. dadkii loo galay oo dhan dhammaantood waxaa lagu gurayaa xabsi waxaana la soo taagayaa maxkamad oo federaal waxaana ay bilaami doontaa bishan February aynu ku jirno bilowgeed. run ahaantii shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo caalamka oo dhan waxyaalo badan oo waxa jira aydan ogeyn oo aad iyo aad u qasan. ilaahay khayr ha ka dhigo. waalidiintii Soomaaliyeed ee barnaamijyadani galay kama aysan fakarin aayaha ubadkood. waa wax aad iyo aad looga naxo ilmo Mareykan ku dhashay ama ku barbaaray oo rikirkiisa clean ahaa oo aan wax dambiye gelin laakiin aan wax lacag shaqaynin haba yaraatee in guryo 700,000 iyo 800,000 iyo lagu qoro. waa wax aad iyo aad dhibaato oo ilmahaas dambigaas uu galayo waxa ku soo oogto u soo jiiday hooyadiis ama aabihii. waalidiinta Soomaaliyeed iyagoo aan ka fiirsan waxa ay gadaal ka noqon doonto ayay waxay arkeen lacagtii iska socotay ee sida roobka u daasay ka bacdina hubaya hiddo ayaa ka dhacday. waalidiin badan ayaa ilmahooda magacyadooda lacag ku sarifay, jeega ku sarifay, hebelow ilmahayga igu qor, wiilkayga igu qor, gabadhayda igu qor, gurigan waxaan ku qoray wiilkayga. ilmo yar oo aan waligiis yaalihii shaqaynin Mareykan ku dhashay oo ku barbaaray dawladuna ogtahay rekorkiisa Soomaaliya caqligan inuu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. ilmo yar oo dawladdu ay ogtahay rekorkiisa ka warrama marka guri lagu qoro $900,000 maxaa dhacay يعني حقوق ككينة جوابتها سوى إيمان صحقين لعقتني كتمي. والدين الصوماليات رون أهانتي هويوين كإيا آبياشا وحا لما عاناتي لعقتي سوى دادنسي لكن دب كما يسنفيرنين ملايين كي يبقى الله كي يكونوا اسكد بدعي دب كما يسنفيرنين وحاني حقاي كدن بين دونان. والله رون أهانتي الشعب الصوماليات حالة ماشان إيمان دونت الصومالي دا سيدي دابا وحي ليهين caado iyo dhaqan aynu leenahay ayaa jirta oo ah in aynu qiimeeyno ama la caloolnahay waqtiga saacadaas aynu ku jirno wax taagan. hadday dharag noqoto Soomaaliyeed waxaan la aqlinahay dharagta aynu saacada ku jirno. hadday gaajo noqoto waxaynu la midnahay la aqlinahay gaajada aynu saacada ku jirno. marna qofka Soomaaliyeed ma fiirin doono waxay gadaal ka noqon doonto. amar kasta oo yimaado horta wuxuu ku dhacaa يعني قدر الله.
laakiin waalidiintii Soomaaliyeed ee gobolkan Minnesota joogay kamaysan fakarin balaan meel maysan dhiganin war ilmahan yar oo hantida inta leeg aad ku qorasaan yani maxay arintaani ku dambeyn doontaa maanta waa ayaan daro aad iyo aad u weyn u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan ilmo yar oo 20 jira ilmo yar oo 22 jira ilmo yar oo 19 jira oo Mareykan maanta fursad dahabi ah haysto oo batoona Finland jooga marka rekorkiisi dambi aanu gelin xitaa hadduu isagu geli lahaa wax dhan bayaan lahayd laakiin dambi aanu gelin ay waalidkiis u soo jiidaan maxay dambigaas muxuu ku imaanayaa dambigaas wuxuu ku imaanayaa hooyadii markay tiri raashibaan qaybinaya iyo aabihii markuu yiri raashibaan qaybinaya oo ay ka soo qaataan sida arintaani ku dhacday ayaa rabaa inaan dadka Soomaaliyeed dambiyadu ku imaanayaan aad fahantaan oo idin sheego ilmahan shaqadan waxba kama oga total waxa uu ku ogaa haba yaraatay ma jirto qaarkood waaba lagu qorayba okay hooyadii waxay tiri community service baan bixinayaa ama aabihii wuxuu yiri community service baan bixinayaa oo aan dadkii siinaya oo caawinaya way soo baxday wixii bay beel garaysatay fandarkii cuntada u siinaya ay ka gadanaysa ayaa waxay u keentay jeeb $150,000 oo dawladda u soo dirtay dawladda waa u soo dirtay magaceedii ama magaciisii baa lagu soo qoray fandarkii bay ula tagtay fandarka waa qofka ay cuntada ka iibinayso qofkii ay cuntada ka iibinaysay wuxuu goosanayaa 15% okay 15% giisaas hadduu goosto oo waxeedaas hadday doonto qashinka ha ku darto oo u raro oo rasiidhadeeda siiyo dawa okay wixii buu ka goosanayaa 15% kii haddana meesha waxaa imanaysa waxay dhahaysaa niyo waxaan anigu ma rabee waxaad samaynaysaa niyo dee iyalacseeyo hadday 100 ahay dee 20 ku yaac ama 30 ku yaac 70 okay 70kii xaggee kugu siiyaa dadkii qaarkiis ayaa toos waxay personal jag ugu qorayaan qofkii fandarka qofkii cuntada ka gatay qaar waalidiinta markay lacagtii badato dhowr jeer iyaga lagu qoray fakareen waxay yiraahdeen dhowr jeer baan aad nagu qortay hadda maysan oranin gadaal ma laga baari doona ilantaydi iyo wiilkaygi igu qor halkaas ilmihii uu ka soo galay jeeradaas ayaa ilmihii dambigii ka soo galay waalidiinta qaar waxa ay sameeyeen guryo milyan ama $800,000 cash lagu qaaday ayaa ilmihii lagu qoray ilmihii hal maalin America kama shaqeeyay okay su'aasha hadda imaanaysa waxa weeye warwarka ugu badan ee habdeer Soomaalida haysta waxa weeye ilmahan waa ilmo yar Mareykan ku dhashay ama ku barbaaray wax dambiya oo intuu dawlad u tagay uu soo dhacay ma jirto laakiin waalidkiis oo xaaraantii gurigii soo galiyo wixii xambaarsan ayaa ilmihii u keenay oo yiri iigu qor dambigiina ilmihii kama maqraanayo horta xaaladda ugu xun ee wajahano ee community-gu ay wajahayaan Soomaalidu waxay dhaqan kale oo waxay leeyihiin aan aad iyo aad ula yaabay every case waxa uu socdaa 3 sano soconaya waa federal case 2 sano iyo waxaan ma dhamaanay laakiin maanta damba dhulka lagu la jaraya horta xaaladda ugu xun ee la wajahayo waxa weeyaan qoysas dhan family dhan ayaa maxkamadda wada keenaya aabihii hooyadii gabadhii wiilkii waxaraya ma jirto taas waa ayaan daro aad iyo aad weyn because ilmahani ma shaqayn guri $800,000 ayaa magaciisa ku qoran yahay ilmahani 5 jeer oo min $100,000 ama $150,000 hebel kale fandar u qoray war maxaad ilmahan lacagtan ku siisay su'aal baa imaanaysa waxa arkaseen 130 page oo ay soo saareen laanta dambi baaridda Mareykanka FBI oo meel walba yaacaya waxaad arkaseen jeegagii dhulalka iyo guryaha lagu qortay personal jeegi ayaa la soo dhigay oo FBI du soo saareen marka qof kasta oo eemi meesheeda ku jiray totally isaga hantidiisii waa la qaatay businesskii shutdown baa laga dhigay gawaadhidii waa laga qaatay guryihii waa laga qaatay dahabkii waa laga furtay guryihii baa loogu galay waa la jeebeeyay waliba marka guryaha la galay beerka dhulka loo dhigay dadka qaar waana sharciyan marka hay'adda dawladda FBI ay wax baarisay guriga soo galaan dadka waa la wada jeebeynaya guriga waa la wada jeebeeyay meel kasta joodariyadii baa la jeexjeexay oo lacagtii laga soo guray dadka qaar baa jawaano lacag oo cash oo dhigan laga hela in xoogaa dad badan oo hadda fakaday ayaa jira oo wadanka ka baxay wiilal badan iyo gabdho badan way baxeen qaarkoodna wadanka wayba ka maqnaayeen baasaboorradii kuwan hadda joogay waa laga qaatay
maxkamadiina dhowaan bay bilaabmaysaa kiiskana kiis aan yarayn oo dhibaato weyn Soomaali community ahaan inoo keenaya ayay noqonaysaa markii hore waalidiinta Soomaaliyeed kamaysan fakarin waxaanay hadday maanta ilmahan ay waalidkan ku ekaan lahayn kaliya wax dhan bay ahaan lahayd laakiin hadda waxa ay saameyn weyn ku yeelanaysaa qoyskii oo dhan because hooyadii iyo aabihii ayaa ilmihiina meeshan geliyay taas waa taas talabaad organizationada saan idin kala sheegay laba ahaayeen mid waa gabadhaas Sweet Amy Garrett midna waa gabadh kale oo la yiraahdo Kera waxaa la geliyay suspended baa laga yara geliyay biilka lacag yowgii laga geliyay waa laga joojiyay maanta waxaa wada fariistay MDE iyo gabadhii Kera wada fariistay waxay tiri maxaad igu haysataan waxa la adiga waxba kuma haysano just dad adiga yani xaggaaga ku jiray oo halkaana ku jiray aan qabsanay ayaan iyo dadde aan ka shaqsanay ayaa meeshaada ku jiray kuwaas ayaan diidanay in bacdama halkaani ay la soo go'day inay halkaani hobayo hidooy ay guraan marka Kera iyo MDE way isfahmeen waa wada fariisteen dad group oo ilaa laba tariye gaaraya ayaa meesha Kera ku jiray Kera waxay dawladdu u ballan qaaday in dadkaas ay ay gacan bira ay ku qaban doonto kana tuuri doonto meesheeda inta kale ee joogtana ay samayn doonto baaritaan iyo dabagal sida mar walba ay wax ku baxayaan sida darteed heshiiskaas la isku afgartay wixii aad haysataan ee aad ku dhagantiina waan ka saarayaa tir organizationkayga wixii khalad ay sameeyeen waan ka daba tagayaa baaritaankaas aan qaadanaya intaydan kale hadda customerka iyana howshoodiiba sii wadanayaan iyagana ilgaara ayaan ku eegaya sida darteed heshiiskaas maanta lagu soo kala baxay Kera shaqadeedii waa bilaabaysaa lacagtiina waa loo soo deynayaa laakiin waxay ballan qaaday in dadkii lagu dhaganaa ee meesheeda ku jiray magacyo lama hayo laakiin waa ilaa 20 qof in ay banaanka u tuuri doonto xisaab adagna ay kala daba tagi doonto oo waliba iyadu ay dawladda la shaqaynayso dadkaasi hadday khalad galeen hal xab oo u qarinaysaa ayna jirin kuweeda kale ee barnaamijyadooda aan waxba lagu haysanna ay iyagana ilgaara ku hayn doonto marka arintaas maanta ay dhacday waa lagu soo heshiiyey Soomaalida sidii shaqadiina intii gabadha Kera ku jirtay ma inta la qabsaday ee hadda dawladdu ku dhigantay meesheeda ku jirto mise intiina kale inta la qabsaday ee dawladda hadda gacanta ku jirto la yiri waa ay tiri waa tuuraya intaas waa ku daysay intiina meesha ku jirto si wanaagsan ha loo shaqaysto xaaladdu sidii hore maaha qof waliba cuntadu soo qaado ciyaalkii iyo dadkii loogu talagalay ha gaarsiiyo waraaqaha la iska hubiyo gabadhaas qandaraasyada idin siisayna iyadana dhibaato ha u geenin oo ha ku dhibaataynina sidii gabadhan Amy la yiraahdo cadaanka waxa jarka ka tuuray ee dhibaateeyay ee qaad baray ee shishad baray ee sixir baray ee ilaa inta kaxayeen Muqdisho geeyay Muqdisho 3 bari soo joogtay baa leeyahay Kenya la geeyay waxaasoo dhan buraanburkii iyo wixii la saarayay waa black magic bay ku sameeyeen Soomaaliduna waxan way sameeyaan wayna yaqaanaa ragooda ku sameeyaan ragooda dumarkooda ku sameeya waxaani waa wax ay qof bilkaas qoftan cadaanka waxay sameeynaysaa wax qeyr aqliga oo qofka bila aadanka maskaxdiisu aanu qaadi karin oo waliba qof cadaan ficil ku dhaqmo aanu ku dhaqmin karin habro Soomaaliyeed oo iyagu ama gareetii oo waxba kale ogan intay ku yimaadaan buraanbur ha ku qaadaan oo maanta dhan ha ku yiraahdaan Sweet Amy Garrett adaa falaawarkan iskale faceed karoonay yani iskaga qor intaas oo $100 milyan qofkaan qof normal ma ahayn wayna sheegtay waxay tiri waxa lagu sameeyay wax la yiraahdo black magicna waa wax jira oo gaaladu way yaqaanaa ta kale Amy nafteeda ay badbaadinaysaa run been Soomaaliya ama ka naxa ama ku farxa Amy gaariga wadatay ay gadatay $15,000 laha guriga ay dagantayna waa guriga intaan organization lahayn ay daganay way u sheegtay waxay tiri aniga wax iga muuqda Diamond Lula Maxamed walaalo way tagtay waa la geeyay Muqdisho 3 bari bay joogtay waa la geeyay Muqdisho 3 bari bay joogtay way soo bixi doontaa waxyaalo badan baad arki doontaan haddii Ilaahay yiraahdo marka yani waxay tiri gurigan aan daganahay FBI waraysigiisa Star Tribune waa gurigii ay daganayd markii yani aysan organization ayna lahayn gaariga soo iibsatay $15,000 boo halka Soomaalidu ay wateen gawaari gaaraya $130,000 $140,000 qaarkood ba weel 16 milyan santi loo hayay gaari $400,000 wuxuu ku socday aan adduunka la arkin oo la maqlin marka
yani wax iska kee bedela ma jirtay tiri ilaa iyo marka laga reebo lacag 600 kun oo ninkeeda wiil boyfriendkeeda oo uu qaatay oo uu Las Vegas iyo meelaha ku tagay baabuur ku kuraysto hotel ku tagay kuwaas oo ay ku sheegtay oo ay tiri wuxuu ii sameeyay 600 kun maxay ahayd billinkeyga ayuu wuxuu ku sameeyay office-keyga dib habayn taasna wax laga yeeriyo ma iyadu mas'uuliyad dambi way yeelanaysaa oo agreementigeeda ay jabisay oo waxa kamid ahaa in wixii khalad ka yimaado iyadu ay mas'uuliyad qaado dadkan ay ilaalin doonto marka waxba iyadu yaanay oranin dambi anigu ma galin oo yani iyadu durba waxay soo jeedisay keera ay tiri sweet amy ay tiri anigu nolosheedu waxay iskama bedelin gaariga 15 kun oo wata macnaheedu hadalkaas waxaan ahay bay tiri qof miskiina oo sharciga raacda oo sharciga ilaalisa ma kugu jireen dad yani criminal yes of course bay tiri waa laga yaabaa bay tiri in dad yani tuuga oo criminal oo wax dhacaya ay iga tirsanaayeen waxay sameeyeen mas'uuliyadooda ma qaadi karaan laakiin waa been way qaadaysaa mas'uuliyadda oo agreementiga ay saxeexda iyada iyo dawladda u dhaxeeyay ayaa waxa uu ahaa agreementigaas buu ahaa yani inay iyada mas'uuliyadaasi qaadaso sidaa darteed wixii ay nafteeda ku difaacayso gabadhaas cadaanka ah way sameynaysaa way isku difaacaysaa dambigiina way kugu soo foorarinaysaa horeyna idinku sheegtay oo waxay idinku tiri bulshada Soomaaliyeed fariista oo si fiican wax cuna show off in laga daayo media hadaaya 100 jeer ba idin kala hadashay tii ugu dambeysay habeenkii dahabka la isku doonsiinayay lagu waday gaariga lagu riixayay waxay intiri gabadha meesheeda ka shaqeysa dahabka siiya laakiin biliis bay idin dhahday ka duubina media waajibisay waa duubtay Soomaali waxa weeyaan dhibaato kasta oo ku dhacda iyaga isku keensada hadda iyadii waa galaafateen idinkii waa isgalaafateen qof bila aadmi oo ku soo dabageli lahaa Soomaalideena waxa weeye programyadan aad aragtaan ee dawladda inaga inta yar bay dadku wax ku cunaan laakiin waxa jira xitaa programyo kale mashruuciyo kale oo dhismayaasha electroniga waxaasoo dhan Soomaali ma qaadato wadooyinka la dhisay dad cadaan ah qaata millions of dollar baa lagu cunaa millions of dollar baa lagu cunaa indhayartu barnaamijkan ku jirna waa ku jiraan dadka kale waa ku jiraan wali waxa la haysto oo inaga ahayn ma aragtay dhibaatada waxa keenaya dad Soomaaliyeed ayaa 12 sano ka hor programkan ku jiray oo lacag ku sameeyay maanta jooga oo lacagtooda haysta baabuurtay wataan ay qarax iska tahay Soomaalida waxa weeyaan dhibaatada dhacday iyaga isku keenay maalinta qofka Soomaaliga jeebkiisa ay gasho in yaro lacag arkay qayrada asqabsanaysa baba maanta kalena madaxana fur mar hadaad adduunyada hesho darajiye magac laan dheer banaan dagaanahay waa biqlay taajir baanahay kanaan wata kanaan duulinay يعني وحيبه waxay noqdeen غير العقل Soomaaliduna waxa la yiri nin durbaantumay baa la yiri ilaaq dalbay arabtuna waxay yiraahdaan alladhi yadqdu ala albab hasil aljawab qofka markuu albaab garaaco jawaab buu helaa yani jawaabta ay helaan waxa weeyaan Soomaalida iyaga u yeedhay meel arintan ma dhici lahayd oo dadka ma la qabqaban lahaa hadii iyagu ayna waxaan sameeyno haday gaawaradooda caadiga iska wadan lahaayeen guriyahooda caadiga iska taganaan lahaayeen shibtooda afkooda haysan lahaayeen بخبخناني أين بدرتين سير مع اسكدو واحد دعلها هذا يرات من جت لكن وضنكي أو كجرا حالة والله Soomaaliya beenana idin sheegeen marka aad dhantoonka tagtaan billinka la yiraahdo idea centerka waxa ku yaala ofisiyada ugu waaweyn gobolka Minnesota dadka maalqabeenka ah looyarada dadka mashaariicda oo dhan waxa ay yani billimadaas ayaa xafiis u ah marka iska hawayga marasid area-da dhan waqtiga qadada dadka madaxda maraya wax kasto maraya wadiyaabsa maanta waa down wadankii oo dhan waa dasaya ilaahay baan idinku dhaashay Soomaaliya aqligaan ma shaqeynaya aqliga in laga shaqeysiiyo ayaa loo baahay ilaahay aqliga wuxuu inoo siiyay inaynu ka shaqeysiino oo wax ku fahanno يعني ودنكي او سيدان دان وا او ددكي جامعada uga soo baxay 10 sano 15 sano wax barasho ku jira cadaanka aha wadanka ku dhashay maanta qaarkood ay cunto layn ugu jiraan yani qof Soomaali oo qaxootiga ayaa intu dhiilahadiba baabuurti laga waay gurihiiba arka galay wax kasta cirkay galay everything يعني waxa weeyaan Soomaali iyaga ayaa maanta dhibaatada ku dhacday iyaga iskaasiiyay waxayna isku gaasay war wadankan inaga badan gabadhan eemi xafiiskeeda dadkii ka shaqeynayay waa dadka dhibaatadan oo dhan mas'uuliyadeeda dhigay waxay ku dhigeen ummadii kale oo dhan bay hangool soo ugu qabteen markaas hangoolka markay ku qabteen kaba ceeshaan qabyaalad qur dagaal iyagiyo intay wixii soo qaateen
media bababa maanta oo kalena madaxana furan maanta oo kalena furan maanta oo kalena yani xishoodkii baa tagay xayadii baa tagtay ixtiraamkii baa tagay alla kacabsi dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku dhacday iyaga isku keensaday ma aragtin qoomiyad kale oo meeshaan haysto maanta lagu dhagan yahay oo inaga ahayn waa maya Soomaalida waxa weeyaan arintan cashar hay noo noqoto Soomaaliya please arintan cashar hay noo noqoto dadka kale ee hadda programada organizationada gabadhan kale gabadha Soomaaliyeed ku jira ee qofkii kale programkan lama xidhin runtaan idin sheegaya programkan lama xidhin programkan qofkii ka faa'iideysanaya dad kala qandaraasyada qaadanaya Soomaali bay noqon karaan cadaan bay noqon karaan qofkii si fiican u shaqaysanaya lacag uu sameeyaa war hadii lagu yiraahdo bishii $40,000 sameey adoo gurigaaga joogo waliba dadkiina adigoo dadkii u qaybinaya cunto oo dadkii caawinaya 40,000 bishii sameeysid waa lacag aad u badan laakiin inta ka badan marka tira afkii aan galiyo oo intaas in ka badan aan sii raadiyo oo waliba aad waxaan xadaad leedahay okay bal waxade aamusu afkaaga hayso oo qabtaan iyo qacdaan iyo laandheere banaan degaan madaxaana furan iyo habartii qandaraaska haysatay ayaa waxay wadatay baawur $15,000 ka bixisay gurigay degan tahay waa gurigii ay barigii ay hore ay deganeed organizationka madaxda ka wasay sheegtay adigina waxaad soo qaadatay gaari $150,000 guri waxaad qaadatay $900,000 hal mal baad wada shubtay waxaad tii gaariga baad tii Soomaha xabaduhu inaana karin taayirada waxaas ku xid kan waxaad ku xid yani waxyaalaha dadkani ay sameynayeen qeyr al-aqli bay ahayd yani waxyaalo aan maskaxda iyaga dadka Soomaaliyeed dhibaatadan isku keenay dhibaatadan dhacday sumcad xumada community-geena ku dhacay waxa community-geena ku dhacay oo dhan inaga ayaa mas'uulka inaga ayaa sabab u ah maanta waxay maraysaa in family dhan la oran doono criminal oo case federal lagu qaadi doono lagu qaadi doono qoysas dhan wiil aabe ilmihii gabadhi kulli ayaa jeegakan wada qaatay hooy wiilkayga igu qor gabadheeda igu qor hooyo hido kamaysan fikirin inoo han dirito xaman doon ilmihiiba mustaqbalkiisa qaar ay ku ciyaareen Soomaaliya billahi alaykum programkan lama xidhin wixii dawladdu ay dadka ku caawiso way furnaanayaan way soconayaan qofkii ka faa'iideysanaya ee qadaraasida galaya ee si fiican wax u bixinaya wixiisa waa helaya laakiin intan cashar hay noo noqoto hana la joojiyo war wadankii oo daan ku jira war dadkii wadanka lahaa ee wax bartay jaamacada ka baxay oo unemployment qaadanaya oo aan shil lahayn oo shaqooyinkii dhan wada xiran yihiin ayaa qofkii Soomaaliyeed intuu dheelarta wuxuu dhigay $140,000 baabura guri sideed misooyan guriga hatta guriga arka galay guri $200,000 waxa arkaysa $500,000 qabo bangiga maalintii waxa account-ka laga soo dadka hadda guryaha lagu qabtay cash-ka iyo kuwa wali xambaarsan qaar waxa la ii sheegay baca kuwada xawaalada hortaagan oo intaasan kugu qorayaa inta maydrasa magacaaga intan qaado marka sheekadu waxa weeyaan inaga dhibaatada isku geysanay shacabka Soomaaliyeed oo hal la fikiro intii dhibaata dhacday waa dhacday wixii dhacay Ilaahay naga wada badbaadiyo dadkeen Ilaahay dhibaatada ka badbaadiyo laakiin waa in aan wadankan lacag waa la wada cunaa maxaa inaga dhigay tukaan baarle su'aashu waxa weeye Soomaaliya ina dhaxtaala maxaa inaga dhigay tukaan baarle ducaysane ilka casoo ku balogaraynaya wax yar ka bacdi waan ku balogaraynaya marka dambe ii soo noqon ducaysano balog baan ku saaraya waxa weeye dadkii waxa weeye waxa yani inaga waxaan isku geysanay inagii ayaa waxaan sameeynaa arintan in laga taxadaro wixii dhacay waa dhaceen laakiin dariiqii dadkeena hore ku hoobteen dadooyeenan ku hooban war Soomaalidu waxa way warmiyaadan cashar ku qaado ummadu dhibaato kasta oo ku dhacda waxay ka bartaan cashar bay ka qaataan waxbay ka faa'iidaan dhibaato kasta oo ku dhacda laakiin inagu dhibaatada inagu dhacdo waxba kama faa'iidan wadankan markii aan imi waxaan xusuustaa niman aan garanayo oo maanta aan rabin inaan halkan ka magacaabo yani habeenkii waxa qaad magaalada simaado oo dhan iyaga gadan jiray sababtoo
$1,000 $2,000 bay dhigi jireen waa markii lacagta macduunka ay hadda lacagta meel walba iska daadsan tahay wadankii yani sidii berigii hore ma waxaa jirta beriye aan iraahday beri waxaa jirta $300 ay qofka ula dhignayd $3,000 inuu yahay inay la qiimo tahay sidaa darteed yani nimankii programyada kusoo jira ee businessada dowladda ku jira ee saa u boodboodi jira maanta mid kama joogo mid la xidhay oo dhowr iyo 10 sano soo laaco soo baxay mid fakaday oo wadanka ka cararay sidaas ay tahay raggii kale uga dambeeyay ama dadkii kale uga dambeeyay businessyadii raggaasi ku halaagmeen oo kala furtay dariiqi wanaagsanaa muu qaadina kii isaguna waa galay 10 sano sidoo kale u dhuuqaya dhab iyagina waa la wada jaray marka waxa weeyaan Soomaalidu dhibaato markay dhacdo ummaddu waxay ka faa'iidaan cilmi aqli bay yani waxay yiraahdaan meeshaan maxaan waxbaynu ka faa'iidin laakiin Soomaalidii kuma qaadanayaan waa ku sii soconayaan hadda dhibaatadan dhacday way dhacday barnaamijku waa soconaya Soomaali dambaa soo baxay kontraadyada la siin doono Soomaali kale soo abalay garayn doonta gabadhii kale hadda Keral lahaa waa u furanta yani kama quus qaadanayaan kuwa ku jiray inay dariiqi shalay walaaladoodan ku haligmeen ay ka leexdaan oo dariiq fiican qaadaan marka ilaahay khayr ka dhigo dhanka kale magaaladan waxa jirta iyadana buuq badan oo kala taagan maanta xitaa suuqa karameel dad baa isku gacan saaray ayuutooyin ayaa lagu jiray ayuutooyinkaas 22 qof 12 qof oo gacantiiba ay tahay qofkiiba ay tahay 20,000 qaar ay tahay 10,000 kulligoodna halkan isku wada haleynayay ka bacdi gacmihii qaatay maahan gacmihii kalena waa baxeen meeshii yani de wuxuu qaateen wuxuu la isku haleynayeen waa talo doontii waa degtay doontii eemi waa degtay halkii dadkii iskuma samrayaan maanta dhan tabtii baa la haysaa qaylada dhacasa dagaal maanta gacan baa la isku tagay meelaha qaar marka taa lafteeda war adduun waa la helaa ee dad lama helo adduun waa la helaa ee dad lama helo waxa weeyaan isku dulqaata wixii dhacay waa dhaceen qofkii ay dhibaato haysata hal caawiyo qofkii ayuutadii awoodi waayay war hal kale hal sameey war qofkii ay ka tagtayo dooni buuxda baa lagaga tagay iska samee laakiin ummadda hadda waa iswada eryanayaan magaalada guuxa iyo qaylada ka baxsan wadyabasa rag waxaa jira iyagana taraagyada xitaa loogu qaaday rag waxaa jira taraagyada loogu qaaday yani loo gaday oo baymanti ay qaarkood ahaayeen haaf laga dhigay iyagii laftoodii yani wuxuu magaaladii dhan baa madaxiisa iskula jirta marka in la isku dulqaato ayaa fiican suuqa karameel maanta xaalad xun baa ka taagan waa iswada haystaan dad baa xitaa isgacan saaray dee qofkan maxaad kula dagaalamaysaa haddii ayuutadii uu qaatay lacagtiina ka baxday isagu gacantii uu bixin lahaana maanta uu ku yidhaahda mahay war qofkii hayee awoodo dadkii aad la gashay ayuutada iska sii oo bixi ha ka faa'iidaysan jaaniskan dhacay iyo burburkan kii aan haynna ilaahay baa kuoga de waxaad tiraahdaa ma hayo ma awoodo marka xaaladaasaa taagan magaaladii madaxa iskula wada jirtaa dagaal weyn ayaa ummadii ka dhexeeya ayuuta war baaba ka dhici doonaba meesha marka aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamaya shacabka Soomaaliyeed dib aan iskugu noqono dhibaatadii dhacdayna aynu 10 leen aynu wax ka baranno laakiin godkii ay ka dhacday aynaan isku sii gorin dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay maanta ee Minnesota wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh